السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن فاونديشن أنيقو من محمد عبدية لما نولا لها ميلان جوجنبا إلى هنا ونبديلو برنامجي أن فيديو جي هورك سوقلي كسب سنة قلقالي عرورته فضفضيت كوجرته أما دتك قبابة ديفكتي جاس أو أن مركي هورا دتك وين كجسوا هذا الناي إيو أن كارنا سنتومka ayaan kaga soo hadalnay insha Allah qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa caruurta sidaan hore u sheegay waxa lagu magacaabaa ama afka Jarmalka lagu yiraahdaa ADHS ama ADS oo u taagan Aufmerksamkeitsdefizit ama Hyperaktivitätsstörung afka Ingiriiskana waa ADHD oo u taagan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sida la sheego laba maado ayaa dadka jirkooda ku badan mid waxaa la yiraahdaa dopamine midda kalena waxaa la yiraahdaa noradrenaline. Marka symptomska caruurta waxaa la yiraahdaa caruurta marka ugu horeysa concentrationkooda ayaa aad u hooseeya midda labaad ilmihii malaha maaragtay maxaa la dhahaa deganaan uu ku fadhiisto oo maaragtay si degani ah uu u fariisan karo ilaahay haba ka dhigee daqiiqad oo qofkii waa qof ilmihii waa ilmo mar walba maaragtay xarakaad badan oo dhaqdhaqaaqiisa activitygiisa aad u badan yihiin waaye tan saddexaad waxaa la dhahaa ilmihii wax ma maqlaan oo waa ilmo rebel ah oo ma arkino aan waxba ka maqlaynin cunuga asagii maanta oo dhan wax walba ku qaylinayo oo ma arkino de qayladiisa iyo dhibkiisa uu badan yahay oo aan ma arkino maxaa la dhahaa waxba qaadanaynin waaye intaas waxaa soo raacdaa la yiri in marka ilmihii maxaa la dhahaa society-ga laftirkeeda uu kala kulmayo in kali laga dhigo yacni maxaa la dhahaa Ausgrenzung bay dhahaan Jarmalku exclusion yani Ingiliishka ilmihii oo aggressive ah ilma aggressive ah waaye oo ma arkino maxaa la dhahaa mar walba xanaaq iyo dabeecad xumo iyo ay ka muuqato waxa ilmahaas sidoo kale ku badan baa la yiri inuu ma aragtaa dhaawiciisa inuu mar walba ashidentigiisa u badan yahay oo ilmahaas mar walba uu daqar iyo dhib iyo ma arkino xagtin iyo meel walba uu ka dhigayo oo ilmahaasi uu maaragtay riisikada oo inuu korkiisa wax gaaraan maadaama uusan wax taxadara uusan lahayn iyo aysan ku jirin maarkino inuu mar walba ay dhibaato ilmahaasi soo gaadho marka maxaa la dhahaa teraabiyada conceptiga teraabiyada ilmahaasi loo baahan yahay waxay tahay baa la yiri waxay ku xiran tahay hadba maadadaas sidii korkiisa maadooyinkaas aan soo sheegnay sidii ilmaha korkooda ay ugu badan yihiin bay ku xiran tahay marka daawo in la siiya dhici karto oo daawadaas maxaa la dhaqaatiirtu ay daawo u qoran hadaa takhtar caruurtii u geysid oo aad meel takhtar leh aad joogtid oo ilmihii oo maxaa la dhahaa marka uu daawo helo in la cadeeyo aufklärung yani in horta marka hore la cadeeyo maxaa la dhahaa qaabka barbaarinta ilmahaas yani maskaxdiisa qaabka ay u barbaaraysa psychology ahaan psychoeducation يعني محل psychoeducation أما social education waxay dhahaan Jarmalku oo ah barbaarintii ilmaha qaabka maskaxdiisa ilmahan u barbaarayso qaabkay u korayso maskaxdu in maaragta marka ugu horeyso horta la cadeeyo oo la baaro waa muhiim farxaltanistraabi inuu ilmaha maaragta dhaqanka laga tarbiyeeyo oo tarbiye oo dhaqanka inuu ilmuhu helo farxaltan waa dhaqankii cognitive training cognitive waa garanaysaan waxa waaye maxaa la dhahaa waa garaadkii qofka maskaxdiisa qaabkay u shaqeynaysay inuu ilmihii training inuu u helo yacni tababar in loo siiyo ma aha ilmuhu inuu caqli xun yahay ma aha ilmaha qaar baa maxaa la dhahaa very educated yani very intelligent ah oo maarkino maskaxdoodu aad u sareeyaan laakiin deganaansho la'aanta iyo buuqan kale ku furan baa maaragta qofkii maxaa la dhahaa jahwareerinaysa marka waa inuu helaa cognitive training cunugu waa inuu helaa
waaridkana L-train training waa in waaridka laftirkooda training loo sameeyaa si qaabka ay ilmahooda ula dhaqmi lahaayeen markii lagu sheego defectigaas ilmaha waa inuu helaa teeda kale waxaa jirta yacni neurologiga takhtarka oo neerfaha oo maxaa la neurologiga ah waa in lala xiriiraa feedback in laga helaa oo waxaa jira marka maxaa la neurofeedback waxay dhahaan oo jarmalku ay maxaa la dhahaa mashiin dadka lagu xiro maxaa la dhahaa madaxooda lagu xiro oo wuxuu uu maxaa la dhahaa waxaa EEG bay dhahaan jarmalku marka waxaa lagu cabiraa maskaxda maxaa la dhahaa shaqadeeda neerfaha shaqadooda qaabka ay u shaqeynayaan sida wadnuhuba uu maxaa la dhahaa dhiid u dhaho markay wax ku xiraan mashiinka lagu xiro oo maxaa la dhahaa wadnaha qaabka uu maarkin uu u shaqeynayo halkaa looga jeedo oo maxaa la dhahaa baaritaanka lagu sameeyaa maskaxdana waxaa jira mashiinkaas lagu xiro oo markaa maxaa la dhahaa maskaxda lagu fiirinayo qaabka shaqadeedu ay tahay marka waa in takhtar oo neurology ah caruurtii takhtarka neerfaha waa in loo geeyaa maxaa la dhahaa baaritaankaasna lagu sameeyaa mashiinkaas lagu xiraa baa la yiri marka waxaa loo baahan yahay maxaa la dhahaa istiraatiijiyo oo yacni optimiring lagu sameeyo maxaa la dhahaa qaabkii oo ilmaha loola dhaqmi lahaa waa in qaab istiraatiijiye ah oo maxaa la dhahaa ilmahaas ayaga lagu jaangooyey maxaa la dhahaa optimiring loogu sameeyey in maxaa la dhahaa markaa ilmihii loola dhaqmaa oo structurekaas ilmaha maxaa la dhahaa lagu hogaamiyaa waalidku waxay u baahan yihiin baratum yacni maxaa la dhahaa consultation bay u baahan yihiin oo ay uga baahan yihiin maxaa la dhahaa Jugendamtiga waxay dhahaan halkan jarmalka oo ah hay-adda qaabilsan caruurta waxaa jira takhaatiir oo waxaa jira psychology ah oo caruurta ah baa jira in maxaa la dhahaa loo geeyo in dadka oo maaragtay ilmahaas gacanta ku hayo dhan ma aha waalidka kaliya ma aha macallimiinta hadduu xanaano caruur dhiganayo qof walba oo weyn oo cunugaas ma aragtaa koriimadiisa ka qayb qaadanayo waa psycho educationka dadka oo maarkin maxaa la barbaariyayaasha ah ama waalid ha ahaadaan ama xanaano caruur ha ahaato ama iskuul ha ahaado in ay informationkaas wada hayaan oo cunugaas qaab dee maxaa la dhahaa optimaal ah yaa ilmihii ma aragtay si uu ugu helo in la fahmi karo dad fahmaya oo maxaa la dhahaa markaa u tababaran in cunugii ay gacanta ku qabtaan si cunugii uusan dhibaato kale uusan ula kulmin oo markaa ilmihii maxaa la dhahaa dhibaatooyin badan oo waxaa ku dhacda ilmihii in lagu shaabadeeyo inuu yahay ilmahan ilmo oo maaragtay aan caqli ku filan lahayn in iskuulada oo la geeyo caruuraha kale oo maarkino markaa maxaa la dhahaa dhibaatooyinka kale ay haystaan oo ilmaha markaa maxaa la dhahaa mustaqbalkiisii halka uu ku baabo marka ilmuhu ma aha waa multitasking waa qofka waxaa la yiraahdaa haddii dhinaca kale laga fiiriyo qofka maxaa la dhahaa qofka maaragtay maxaa la dhahaa hyperactivity-ga ah ma aha qof oo maxaa la dhahaa caqli xun ma aha waa dad oo maxaa la dhahaa multitasking ah kaliya ilmahaaga haddaa aragtid inuu qabo oo adiga kulleyba traininga u baahan tahay laakiin aniga waxyaalaha kulleyba isoo maray baa waxay tahay ilmahaas inaan markii aad rabtid inaa maxaa la dhahaa la samaysid homeworkigoo kale in aadan nus saac ama 20 daqiiqo oo dhan aadan hal wax kaliya ku ekaan waa inuu cunugaana uu helaa waxyaalo kala duwan oo maxaa la dhahaa 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo hadduu xisaab aad ku madadaaliso uu ka shaqeeyo waa inaad ka bedeshaa laakiin waqti aad u dhaxaysiisaa oo biririf ah ama maxaa la dhahaa break oo kale ah oo uu waxyaalo kala sameynaya ama hawada aad u saartaa kabacdi haddana 10 daqiiqo kale wax kale aad maxaa la dhahaa isla wixii ha ku celinin markaa hadduu luqadda ingiliishka wadan uu ku nool yahay luqadii ingiliishka ahayd hadduu uu maaragtay wax uu maxaa la dhahaa inuu masawiro ay tahay inuu wax masawiro haddii aad jarmalka ku nooshahay luqadii jarmalka waxyaalo kala duwan ee caruurtan u baahan yahay waayo caruurtani
wax hal nooc ah mar walba ma qaban karaan waayo ilmihii maskaxdiisii boodboodkaasi ku jirto marka waa inaa laga faa'iidaystaa in qaab multitasking ah ilmihii loola dhaqmo teeda kale ilmaha badanaa waxaa la dhahaa fine motoriga bay wax ka qabaan saasoo kale marka waa inaa maxaa la dhahaa training badan la samaysid sidoo kale maxaa la dhahaa isboortigoo kalaa u fiican baa la yidhahdaa caruurtaas inaa xataa ma arkino hooyadu ama aabaha ama maxaa la dhahaa dee haddaa yuganda amtiga iyo dadka ma aragtay hay-adahaas aa la xiriirtid xataa waxaa u badan tahay oo anigu aan aqaanaa in qof loo soo diro dadka oo cunugaas si maxaa la dhahaa qof cunugii loo madadaaliyo waa in dabaal la geeya waa in isboort la geeya waa in ilmihii enerjiyada ku jirta laga saaraa oo ma arkinoo maxaa la dhahaa waxyaalo kala duwan ilmihii loo sameeyaa si maskaxdiisii qaabka u shaqaynayso loola shaqeeyo yaa oo aanan wax oo ma aragtay aysan maskaxdiisa qaadi karin aan lagu cadaadin ilmihii marka insha allah intaasaan kusoo gabagabeynayaa dhammaan khayr baan rajaynayaa qofkii su-aalo qaba wuu soo weydiin karaa gabdhaha walaalaha aad baan uga mahadnaqayaa ee maaragtay kommentaarada soo qoray oo maxaa la dhahaa ila soo wadaagay aragtidooda gabar abaayo waxaa jirta wiil 3 sano jira haysata oo igu tira iyadana abaaye maxaa la dhahaa xoogaa ilmaha maxaa la dhahaa waan kasoo hadli doonaa waxaa laga yaabaa inuusan ilmaheeda aysan hadda ilmo waxaas qaba uusan ahayn yacni waxaas yaana dhihin yacni defectigaas qaba uusan ahayn ay ku xiran tahay ilmuhu maaragtay markaas cognitive-kooda inta uu joogo qayb dhan waaye hadda ka horna waan ka hadlay oo maxaa la dhahaa daraasaad laga sameeyaan insha allah soo gelin doonaa inay hooyadaasi markaa qaabkii ay ilmaheeda ula dhaqmi lahayd oo maarkino ay maxaa la dhahaa ay isu fahmi lahaayeen marka insha allah khayr baan rajaynayaa halaygaalaha raalli ahaado xaloo dhanaan ilmo yar wiilkayga hayoo kusoo jeeday marka maskaxdeeda xooga waxaa laga yaabaa inay maaragtay aysan aniga laftirkayga deganayn marka khayr baa idin rajaynayaa dhammaantiin walaalay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaa maskaxdeeda aniga laftirkayga dee saacado badan baan soo jeedaa inkastoo hadda aan maaragtay soo gabagabeeyey haddana waxaan jeclaan lahaa inaan ka codsado walaalaha inay maaragtay maxaa la dhahaa subscribe-ka noo saaraan iyo like-ga iyo share-ka iyo maxaa la dhahaa commentigana ay kasoo bixiyaan